السلام عليكم هرادين ملائك lamaane kasta wuxuu raadinayaa qof wanaagsan si ay nolosha isugu wadaagaan taasina waa wax wanaagsan qofka wanaagsan nusqaantaada ayuu kabi karaa oo ceebahaaga ayuu asturi karaa farxad ayuu ku siin karaa laakiin qof kasta maskaxdiisa waxa ku jirta liis dheer oo shuruudo iyo sifooyin badan ku qoran yihiin aadna u maleynaysa inay xaqiiqda ka fog yihiin oo qofka la raadinayo uu yahay qof aan ceeb lahayn oo dhinac walba ka dhameystiran inkastoo anaguba aan ognahay inaan ahayn kuwa dhameystiran nin baa hadda ka hor warqad u qoray nin sheekh ah wuxuuna dhahay waxaan rabaa inaad igu caawiso gabar sifooyinkan soo socota leh kow gabar dhalinyaro ah oo qurux badan aadna taqaanid asalkeeda labo edeb badan oo dhowrsan degan gabdhahana wax dheer saddex mid lacag leh ninkeedana siinaysa markuu uu guursado afar adeecaysa amarkiisa u raacaysa meel walba uu rabo ninkii sheekh ah ayaa warqadii intuu akhriyay ayuu warqad jawaab ah u qoray isagoo leh haddii aan awood u lahaan lahaa inaan arko gabadhaas xaaskayga Casiiza ayaan furi lahaa iyadaana guursan lahaa isagoo ula jeeda adigu waxaad raadinaysaa qof aan adduunka joogin qofkii go'aansaday inuu jeclaado qof aan gaf lahayn oo kaliya wuxuu arki doonaa isagoo malcid lah taagan noloshuna ma ahan mid dhameystiran laakiin raali ahaanshaheeda ayaa dhameystiran wax walba aan raadinayno